السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنت أنا وناس قبلي قرحت بنايو سود هذا مركلية حمده ميديكور channel كان يداون سوا channel كهبلها الصوماليات waxa igu soo dhaweynaya gacmo furan anigoo diyaarsan oo rabo inaan magaalada aado kamila kordahab ayaa waxay leedahay isniinta inay sheegay qalin jabinta xanaanada marka waxay raad magaalada uga soo qaban rabay isniinta aad mashquul u ahay waalidiinta waxaan ku jiraahdaa xanaanada mataqaan shaqooyinkooda loo xil saaro marka howlo badan ay yaal isniinta insha Allah taala gabadheedii leedna way qalin jabinaysaa talaada dambana safar ayaan ahay oo safarkii samarka ayaan fasaxii samarka ayaan carruurta u wadaa marka xogaa mashquul iska ahaa shalay aad mashquul u ahaa maanta laakiin hadda markaan labistaa waxaan isiri reer macalin cabdullaahi gaari ugu dhex sugayaan xogaa yar muuqaal ka gaarsii maasha Allah tabaaraka raxmaan waxaan rabaa inaan aad iyo aad igu mahadceliyo qisada kaamilo سائلة داوتين قبل عصب يا أبو صبيري تدع عصب يا أبو صبيري أصحاب عصب يا شيء سودوا هذا قام فرنك سودوا هذا يقول عصب تموقلك لايك تيسا إيو سبسكرايب كنو صار هذا هرنو لجوت الموقلك لايك تنو صار موقلك لايكتو ميل سرا أي جارسيسة مركات يادي أيقوم هاد علينا ومهد سنتهين ما شاء الله تبارك الرحمن دعوين كينا كوميتيدي وحينا نوان أقرستي كاملة يرنا وحات iga codsateen tan koobaad inaan quraan badan saaro insha Allah taala waan sameynaya haduu Ilaahay yiraahdo markii iskuulka bilaabayso ayaan quraan saareena waa isla go'aansanay anigii aabaheed ducooyina ay soo qorteena jiro oo dhahdeen xamdi gabadha yarta subaxda ku aqriso aad iyo aad u mahadsantiin muuqaalka kaamilna run ahaantii marka inii sheego meelo aad iyo aad badan ayuu gaaray snapka tiktoka instagramka meel kasto iga soo horbaxaya laakiin waxa cajiib ah sawiraanta kaamila ayaa la raadiyay waa la soo helay muuqaalada waa la kor saaray ma sha Allah aad iyo aad u mahadsantihiin gabdho badan way iga mahadceliyeen gabdho badan oo dhibaatada aniga aan haystay mid lamid ay ku dhacdana kumitiyada ay ii soo galeen gabdho caruurtoodii ku waayay ee gaalada hadaladooda run u qaatay hadda ka shalaayana way la soo xiriireen ما شاء الله تبارك الرحمن هرتا مركزته waxaan rabaa inaan inii sheego qadarta rabbi waa waxa aad qurux badan waa lagu itixaamaya iimaankaaga ayuu Ilaahay ku fiirinaya hadii iimaankaaga uu ku guuleysto oo qof guuleystaa noqotana wax qurux badan ayaa jisa lagu siinaya hadaad noqonayso qof Ilaahay mataqaana qadartiisa ku kalsoon ayadana jisadeeda ayaa helaysa ومهدسنتهين ما شاء الله تبارك الرحمن waxaad kala diga codsanaysaan oo inay arkaa qisadii warsame إن شاء الله تعالى taas iyo tagurkeyga waa aad ay u rabtaan laakiin markaan 100 kun gaaro mudiganaa channelku xogaa wuu hurdaa bal kor u soo kiciya aad iyo aad ayaan u mahadsantiin ما شاء الله تبارك الرحمن waan caafimaad qabaa waaniga maanta in hor fadhiyo waan qoslaa waan faraxsanahay noloshana way aragnimo badan ayaan ka haystaa waxyaalo badan oo la soo kulmayaan jira nolosha oo way aragnimo badan isiiyay ما شاء الله تبارك الرحمن samirkuna waa qurux badan yahay hore ayaan iigu sheegay gabadheedii yarta markay hor socoto aad iyo aad ayaan ugu farxaa waxa markaa aad iyo aad ii farxad geliyay muuqaalka iyo komitiyadiina quruxda badan ما شاء الله تبارك الرحمن sida aad iigu duceyseen aad dhahdeen Ilaahay hooya Soomaaliyeed ha cadaabin hooyooyinkeena Ilaahay ma cadaabo foosh way kala duwan tahay dadka gabadh Ilaahay ayaa u fududeeya laakiin waxaan ka helay ما شاء الله ducooyinka ay soo qorteen sidaad kaamil yar ugu duceyseen sida mataqaana aad ii dhahdeen maxay ahayd gabadheeda quraan saar tan kale ku qoslana waxay tahay waxay dhahdeen ilaa xamdiyay inaadan caruur kala dhalin caruurta dhib ayaa ku soo martay aniga caruurteyda wala cuuda aad iyo aad ayaan ugu dhibtooda dhalmadoodana aad iyo aad ugu dhibtooday warsame qiso ayuu leeyahay ma foolan asaga depression ma igu dhicin fooshiisa kadib laakiin warsamo waa la igu qalay qaliin halis ayaan galay wal uurkiisana qaybta ugu dambeeyay halis badan ku galay waana sababta keentay in mataqaana kaamila aad iyo aad loola socdo oo dhirkeeda loo cabiro sababta keenta waaye soo marka insha Allah taala ma ahan inaan mataqaana fooshi xanuunka soo mara ilmo uga caagay ilmo xag Ilaahay ka maqan yihiin oo horta qof ilmo iska ilaali kara ma jiro adoo iska ilaalinaya uurkooda yeelanaysa laakiin dhibkii aan soo maray iyo culayska aan kaamilo umusheedii ku soo maray iyo uurkeediba iyo foosheedii Ilaahay ayaa waxaan ka bariyay inuu Ilaahay i tuso anigoo caloosheedu ii maran tahay maskaxdeeduna ii caafimaad qabto jirkeyguna ii caafimaad qabo gabadheeduna ay 6 jir iyo tahay iskuulay bilowdo waana maanta sababta aan roostada u soo marsaday qamaarkan u xiranahay oo aan u socdo xafladeedii ayaa waxaa dhacaysay isniinta iskuulkina way bilaabaysaa waana sababta aan iigu sheekeeyay ee qisadan iigu soo bandhigay waana sababta aan Ilaahay laba ragco ugu dukaday oo ugu xamdinayo ugu shukrinayo inuu ducadeeda iga aqbalay
waan rajeynayaa inaan ooliyaad caafimaad qaba ilaahay isiiyo kale insha allahu tacaala, laakiin xilligooda ay ku imaanayaan, waana qadaru rabbi. adinkana aad iyo aad ayaa ducadiina iyo mataqaanaa hadaladiina wanaagsan inay jecelahay. gabar soomaaliyeed xun hadaa maqla qalbada ayaa xanuun, sababta waxay tahay intaasoo boqol oo gabdhood oo soomaaliyeed ay igu xiran committee qurux badan ay iisoo qorayaan, ixtiraam badanna way ii haayaan. waa inay jecelahay ilaaha inay jeclaado, dad isjecelaan nahay, wanaag ku midoobay, walaalnimo ku midoobay, ma nihin dad xumaan iyo qabiil iyo ciqdi isku keentay. aad iyo aad ayaa u mahadsantihiin. kaamilo yarna way iga guddoonta ducadiina, waana ku mahadsantahay. ilaaha xifdiyo hooyo kastoo soomaaliyeedna ilaahay oolaadeeda ha u xifdiyo. taladiinana waan qaatay insha allah tacaala. ahayd kaamilaha la quraan saar gabadha adeerta waa quraan saaranaya. waa mahadsantihiin. adinkuna taladeeda waxaa qaateen inaadan qof bili aadana aaminin dhakhtar kastuya. sababta waxaa arkaya gabdhihiisoo qor xamdi ma laga yaabaa dhaqaatiirta intaasoo dhaqaatiir oo weeg kasta kombyuutar lagu saarayay inay ducadii bedesha. laga yaabee qof sadaqa badana ahay, aad ayaan waxu sadaqaystaa, ilaahay aakhira igama lumiyo, aadna waan u ducaystaa, ilaahayna aad ayaan u aaminsanaa. qof waxaan aad ilaahay qadartiisa ugu kalsoon, waana iimaan ilaahay qofka bini-aadankaasi. alxamdulilah, waxaan iska yeelyeela maaha, waa wax ilaahay igu risaqay, ilaahana mahad iskale. marka way dhici kartaa in ducadii aan ducaysanayay iyo ilaahay sidan qadartiisa ugu qaboobay ee uu qalbigaygu marnaba tashuush badan uusan u dareemin iyo xanuun uusan u dareemeynin. waa laga yaabaa inuu ilaahay awoodiisa asagoo ku bedelay, wayna dhici kartaa. waa laysoo raadiyo ku-aawaya leedhaha waa baxaa, marka waa muuqaalka uba dhammaan rabaaba. waa laga yaabaa in ducadii iyo mataqaanaa sadaqadeydii badneed oo ilaahay weynaa waaxidkahay igu caawiyeen, way dhici kartaa. sababta xitaa ilaahay wuu ku teesteynayaa, wuuna ku fiirinaa horaa inay sheego. wax kastana ilaahay ugu bedeli karaa, awoodiisuna way fara badantaa. aan ku kalsoonaano insha allah tacaala hadduu ilaah yiraahdo. waa ku mahadsantihiin komitiyadiina. falcelinta keimaatana waxyaalihii dhiirigeliyay intaasaa kamid ahayd. waana waa inii joogaa insha allah tacaala. muuqaalada dhiirigelinta ahay, muuqaalada disaynka ahay, faloogiyo, talooyin iyo tusaalooyin wax badan ayaa iniisoo wada insha allah tacaala. gabdho badan oo isku qisooyinnahay oo isku qisooyin egnahay ee layidhi caruurtiina way xanuunsanyiin komitiga ayay iisoo galeen. aanan caruurta ka xanuunsanin. inta caruur xanuunsan haystana waa hadiyad ilaahay siiyo. qof kaste wuxuu xamili karayo ilaahay siiyaa. qofna ilaahay ma dhibo. ilaahay wixii maslaxa noogu jirta ayuuna siiyaa. anaguna waa inaan noqonaa kuwa maslaxada rabbigood ku kalsoon ee qaata. waa mahadsantihiin. waa mahadsantihiin ilaa igama daalayo. waxaan rabaa inaan inii sheego, samirka badiya, dulqaadkana badiya, kontaroolka naftaaduna iyasa gacantaada ka bixin. naftaada inaad kontaroolkeeda gacantaada ku haysaaho xataa waxay imaanaysaa inaad qadarta ilaahay ku samirtid. naftaada inaad kontaroolkeeda gacanta ku haysaa waxay imaanay inuu dariska iyo dadka muslimka iyo qof kastoo bini-aadan kaa nabadgalo. naftaada kontaroolkeeda inaad gacanta ku haysaa waxyaalahay u fiicantaa waxaa kamid a inaadan noqonin qof markasta niyo jabsan oo naftiisa kontaroola. jacayl hadday taa waa kuu kontaroolaya, nacab hadday taa waa kuu kontaroolaya, saaxiibtinaada waa kuu kontaroolayahay, mataqaanaa bulsho la wadaada kuu kontaroolaya. qadar rabbi oo naftaada ka imaada ay tahay, naftaada u timid way kuu kontaroolan tahay. marka aan isku soo duceyno, ilaahayna awlaadahana la koriyo. waxaan rabaa inaan tacsiqaas u diro meeshii aan maalintii xamar aan joogaan tagay ee aan kasoo helay quruxda badneyd barl beach maan lahaa. ummadii ku dhimata allah u naxariisto. ummadda soomaali ilaahay burcadahaas ku mariya qalbigooda. habeenkii aan tagayay muusig ayaa laga daaray, walaa qalbada ay xanuunaysa ama meeshaan ku dhimatay idoo muusigka daaran yahay. alxamdulilah, taydii aana gelinin, ilaah iga soo badbaadiyey. inta maanta ku dhimatayna qadartoodii ayaa dhimatay. qof kasta meeshii ku dhimanayo waa qadaran tahay. allah u naxariisto. kul nafsin daa'iqatul mawt. aad ayaa inay salaamaya. waan baxaa banaanka yaa lay taagan, waan arki doontii kaamila xafladeeda iisoo duuba. aan dhad waa iga codsta waa iniisoo duubaya. salaamu calaykum gabdho, waa ina jecela. ilaaha inay barakeeyo.